السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوادا برنامج كيني وررك عالمك waxaan idin soo jeedin doonaa aniga Saciid Maxamed qodobada maanta warkaad ku daawan doontaan waxa kamid ah dalka Liibiya waxa ka socda xuska madaxweynihii hore ee dalka Liibiya kadib markii la waayay cid u dhaanta Muammar al-Qadaafi diyaaradaha dagaalka ee wadanka Sacuudi Carabi ayaa duqeyme ka geystay gobolka Damaar ee wadanka Yemen waxaana la sheegay in halkaas ku dhinteen 100 qof dhibaatooyin bini'aadanimada ayaa lagu eedeynaya dawladda Sacuudi Carabiya dagaal culus ayaa laga cabsi qabaa inuu ka qarxo koonfurta wadanka Lubnaan kaasi oo u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo ururka Shiicada ee Hizbullah iyada oo hubleys wadaarsaday dawladda Israa'iil ayaa ku hanjabtay inay dagaal tamarin doonto ururka Hizbullah halka ururka Hizbullahna uu sheegay inuu dagaal culus ku qaadi doono Israa'iil dawladda Mareykanka waxay sheegtay inay taageeri doonto Israa'iil hogaamiyaha Hizbullahna wuxuu wacad ku maray inuu dhulka la simi doono Israa'iil